السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jirta arin aad iyo aad u halis badan oo ku soo foogan waliba dadka ahlu salaaxa ah ee culimada iyo dalabatul cilmi ka agdhow dadkaas halista aan sheegayo waxaan u maleynayaa inaan badanaa aynaan u fiirsanin laakiin halisteedu aad iyo aad bay u daran tahay. halista waxaa ka mid ah in aad iyo aad loo weyneeyo culimada diinta islaamka ilaa iyo mararka qaar xadkii la dhaafiyo oo hataa hadduu wuxuu caalimkani uu darajo ijtihaad gaadhay aynu isloosino inuu khaldami kara saxmi karana labada jeerbana uu ku leeyahay ajar hadduu darajada ijtihaadka la dhahdo u gaadhay. haddaanu gaadhina dee kolley khaladkii sax labaduba ka kugu way dhaw macquul. halkan waxaan kaa tusayaa qabta videoga ila daawo. sida inoo muuqata waxa saf dheer loogu jiraa sidii sheekh waajidi looga quraan ugu tufila ma garanayo tufkiisaan saf ku jirnaa bay leeyihiin. waa saf dheer oo qof walba hal caagado biyo u sito. dadkan miyaanay oga sheekhu wuxuu ku tufayaa quraanka Ilaahay ma soo wax kale oo quraanka Ilaahay marka wax bogsiinaya ma tufka sheekha mise waa Ilaahay quraankiisa. dabcan waa Ilaahay quraankiisa. marka qof walba inaga mid ah muslima quraanka intuu yaqaano suuratu faatixana ha noqotay waa hadalka Ilaahay waana shaqeynaysa waana dawo. marka halka uu shirku ka bilaabmo meelaha weeyaan in qof la weyneeyo qof bilaadan hatta wadaadkan halis bad gelinaysa namruudkeera qof walba gudihiisa ku jira ayaa soo toosinaysa korinaysa waayo qof wadeen xadkiisa dhaafiyay qofka inay ixtiraamkiisa inuu ummadina ixtiraam iyo waqaar iyo ka dambeyn ay culimadana u sameeyaan waa mid muhiim laakiin markay xadka dhaafto aynu u maleynayna iyagu wax bogsiinaya sidan oo kale waa halis. inagu haddaynu imka tagno inagoo sidan adduunka aynu ka dhimano jiilalka naga dambeeya sidan si kasii badan bay weyneynayaan. marka weyneynta cidda kaliya iskale waa Allah. culimadana wanaagsan oo xoolan jireen qof kasto adduunka ku dulno wuxuu halis yahay fitnaa ha ku dagmi ha ku dago. waxaan ku talinayaa arintaas oo kale inaynu u dhug yeelano aynaan ku dagsoomin